waxa la badbaadiyay runtii waa masiirka dalkan waxa laga badbaadana waxay tahay ku darsi madaxweynahana wuxuu doonayay waxay ahayd muddo kordhis 3 sano iyo bar mucaaradnimo iyo maagis dawladeeda Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa u muuqday inuu ka tanaasulay fikirkiisa uu muqaddimka ugu ahaa mudanayaal isku madbi ahaayeen kuwaas oo magacu kulmiyo taageerayaashiisa ku dhisnaa deegaanka ayaa u arkay hogaamiye haween hagida fiila Soomaaliya balse magacaabistii Roble way isku ardaayihiin ayaa muuq kale u sameysay warkaas baraha bulshada ku xidhiidha ayaa si weyn loogu maadeystay hadaladiisii iyo sawiradiisii kadib boqosho uu ku tagay fiila Soomaaliya tan iyo markii uu xilka wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya uu ka tagay balse marag furkaas waxaa micneeyay magacaabistii Maxamed Xuseen Roble loo magacaabay wasiirka koobaad ee dalka waxay ahayd bay leeyihiin xeeldheerayaasha habqaysiga 4.5 ku Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xirtiisuba oo ay diideen ardaaga khayra ay xilka mulkiyaan taas oo ay sababeen xilka meertada kaliya ay qabtaan beesha goofka xamar iyo beesha koonfurta gaalkacyo si loo helo cadeymo ayanu dib u milicsan karnaa hadalka xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo kol hore yiri mucaaradnimada beesha madaxweynaha Galmudug waa 8 nin oo hal cad isku haysta kii la siiyay 7 kale ayuu dhagax tuuraysaa inaad aragto Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo jooga fiila Soomaaliya walibana ku faraxsan qaabka shaqadu u socotay isagoo hore u sheegay ra'iisul wasaaraha la magacaabi doono uusan hayn bini aadan ayaa loo fasirtay cad karow ku cunay ama ku ciideeyay aamusnaanta ay ka aamuseen magacaabista Roble madaxweynayaashii hore ee goofka Muqdisho ka soo jeeda ayaa ka dhigan xeerka bisada maadaama cadkii looga hormaynay fulinayaan laba qaleelka ku qaybsatay biseelka iskuma qabsato taageerada labadan deegaan u muujiyeen Roble ayaa meesha ka saaraysa mucaaradnimo sanooyin jirtay oo ay xukuumadda ku hayeen taas oo kaliya ku dhisnayd haybta qabiilka 4.5 isku soo wada xooriyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xirtiisu maanta waxay qaadayaan hal hayska amaana Roble iyo reer kale xeer u wada qaada maalmaha iyo ayaamaha soo socda ayaa muujin doona halka ay sadhigato siyaasadda haybta ku salaysan isweydiintu waxay tahay ilaa goorma ayuu siyaasiga Soomaaliga madba yeelan doonaa haybta qabiilku sahanaan dawladnimo ma dhisi kartaa